السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهان وحنا halkan ka wada salaamaya bulshaweynta ku xidhan kanaalka Saad Software. Halkan waxaynu ku qaadan doonaa maanta insha Allah taala haddii waqtigu inoo saamaxo casharkeennii labaad ee kooraskii inoo socday Adobe Audition. Inagoo ku qaadan doona su'aashan sidee codkaaga looga saaraa qaladaadka iyo hawada saayidka ah aynu ku baran doono insha Allah. casharkii hore ee koowaadna waxaanu ku soo qaadanay sidii loogu install garaysanayay isla markaana loo active garaysanayay. maantana waxaynu casharkiina labaad ku dersi doonaa insha Allah ama daha kaga rogi doonaa sida codkaaga looga saaro qaladaadka isla markaana iyo hawada saayidka isla markaana u noqdo cod runtii bulshaweynta aad u raali geliye. waxaanu sugnaaba waa inaynu gudagalno casharkeennii. marka waxaanu sameynaynaa aynu computerkeennii aynu soo gallo waxaanu sameynaynaa insha Allahu taala sidii marka u horeysaba aynu u sameyn lahayn. waxaanu soo furanaynaa marka hore Adobe Audition ayaanu soo furanaynaa waliba CS6 ah kan version kan isticmaalayo isla markaan soo furtay aan yar sugo abaar baan sugaynaa soo furmaya. marka uu soo furmo waxaanu soo qaadanaynaa insha Allahu taala halkii codkii inoo diyaarsanaa. haddii aad ku dhex duubanaysana waa sax waad ku dhex duubanaysaa isaguna waxa ma laha waa kan hadda weynoo diyaarsan yahay. marka waxaan soo qaadanayaa codkii oo aniga meel igu diyaara. codkii markaan sidan u soo qaato waxaan tagayaa halka codku yaalay wuxuu yaalay muusiga ayuu yaalay tijaabo ayuu ahaa. marka saasaan usoo daraagaraynaya waxaan sameynayaa halkan ayaan keenayaa markaas waa ku sii dhex daynayaa. waad aragtaa iminka wuu dhex yimi sidaad aragtaan iminka. markuu sidan igu yimaado waxaan sameynayaa marka horeysaba intan gaabkan aamusan aniga u samaystay oo maxay ahayd iminka ma hadlayo intaasi ma hadlayso halka hore mooyaane. codkii hadba waxa loo baahan yahay markay codka sidan u diyaarsano kow inaynu ka saarno shuquuqda iyo maxay tahay hawada ku jirta codka aynu ka reebno oo codkii saafiya soo saarno. iyo labo inaynu sameyno gaabka weyn ee u dhaxeeya maxay ahayd labada cod aynu ka dhex saarno insha Allah taala. marka iminka haddaan daaro inta aan macal ku daray macal qaladkaas aan ku dhex daray codkayga inaan ka saaro sida aragto iminka aynu dhageysano hortaba. bismillah. Kuuriyada Waqooyi ayaa dhacday lacag dhan $2 bilyan oo Mareykanka ah si ay ugu maalgeliso barnaamijyada kobcinta hubka nukliyeerka sida lagu sheegay warbixin warbaahinta loo soo gudbiyay oo ay qaramada midoobay diyaarisay. intaa yar ayaynu maanta insha Allahu taala edit gareyn doonaa. 3 shay ayaynu ka qaban doonaa insha Allahu taala. kow inaynu nooska ka saarno ama codka ka saarno buuqa kale ee ku dhex jira oo uu codkii saafi noqdo. codkaygan anigu waxaan ku duubay mobilkayga isla markaasna markaynu codkii nooskii ka saarno waxaanu qaban doonaa qaladkaas aan dhexgeliyay ogaan aniga u dhexgeliyay qaladka ayaan insha Allahu taala ka sixi doonaa kana saari doonaa meesha. bismillah. waad aragtaa anigoo maxay tahay iska dan kala hayn ayaan duubay. marka saddexaadna markaynu gaabkaana ka saarno nooskii ama buuqii ka dhex saarno codka waxaanu sameynayaa inaan gaabka weyn ee u dhaxeeya iminka waad aragtaa in doora ayaa u dhaxaysta codkii waa inuu codku isku xidhnaadaa oo aan inaad bara tahay laga dareemin weeye. oo codkii ayaynu gaabka bannaan ka dhex saaraynaa iminka inta kurusyada leh ama maxay lahayd hirarka leh waa codkii saxda ahaa. haddaan daaro Kuuriyada Waqooyi ayaa dhacday lacag dhan $2 bilyan oo Mareykanka ah iminka meesha markuu marayo halkaas markuu marayo wax coda odhan maayo waayo
waxa weeye maxay ay tahay meel cilla waaqlaa. isla markaa horta waxaynu ku dhaqaaqi doonaa insha allahu tacaala ila soco. waxaynu ku dhaqaaqi doonaa inaynu ka saarno shuquuqda, aynu ka saarno halkaa yaree bannaan ee liidka ayaan dooranayaa. isla markaa waxaan leeyahay effect ayaan leeyahay. waxaan tegayaa noise reduction, yaraynta noise-ka. waxaan ka tegayaa capture noise breathing ayaan ku dhufanayaa. isla markaa mar kale ayaan ku noqonayaa. haddana mar kale ayaan tegayaa bartii oo maxay ahayd noise reduction ayaan kasii tegayaa. isla markaana capture-kii hoos ayaan uga degay oo waxaan tegay noise reduction process ka ayaan tegayaa. markaan sidaa u tago waxaan dooranayaa halkan haddaanay 100 ku ahayn 100 ayaad ka dhigaysaa. halkanna sidoo kale haddaanay 100 ku ahayn 100 ayaad ka dhigaysaa. isla markaasna halkan ayaad furanaysaa iyadana. halkaasi haddaanay 0 ku ahayn oo intaasoo kale ama tira ku tahay waxaad ka dhigaysaa eber percentage ayaad ka dhigaysaa. isla markaana si aad u tijaabiso haddii aad doonayso waxaad samaynaysaa halkan yar ayaad ku xidhaysaa. macnaha waxa weeye intii yareydee gaarka ahayd ee aan calaamadsaday ee halkan iiga muuqatay, intaa yaraan calaamadsaday yaanu dhaafin ayay calaamadaasi ku sheegaysaa. halkan ayaad ka tijaabinay markaa inuu ka hadhay. wax shuquuqa ma laha. adiguna markaad samayn doonto waad tijaabin doontaa. halkan ayaad ka furaysaa isla markaas. marka waxaan leeyahay apply ayaan odhanayaa. markaan sidaa idhaahdo haddeer intaa yar ayuunbaan ka saaray, inta kale waa leedahay. waxaad samaynaysaa control iyo baad qabanaysaa iyo dhammaan waa isku wada highlight garaynay. isla markaa waxaad tegaysaa after effect ayaad tegaysaa noise reduction-kii baad tegaysaa. noise reduction process-kii baad tegaysaa. okay ayaad leedahay. idil ahaantood waxaad leedahay ka saar wax alaala wixii shooca ku jira. waxaad leedahay apply. iminka wax shucaaca ma laha codkaygu. ila dhegeysa hadda. bismillah. kuuriyada waqooyi ayaa dhacday lacag dhan 2 bilyan oo dollarka Maraykanka ah si ay ugu maalgeliso barnaamijyada kobcinta hubka nukliyeerka sida lagu sheegay. iminka ma laha maxay tahay wax shucaaca. halkaas ayaynu shucaacay kaga saarnay. iminka dib waxaa loo baahan yahay inaynu ka saarno gaababkan ku dhex jira insha allahu tacaala. markaynu gaabab ka saarayno iminka intaas waa qalad. waxaan rabaa inaan intaan ka dhex saaro. iminka tusaale ahaan intaas wada highlight garanaysaa. saasaad ugu jiidaysaa intaad ugu qabato maxay ahayd intaad ugu qabato lefti intaad tidhaahdo ayaad odhanaysaa sidaas, ama xaggaa waad u jiidi kartaa. dacalkii kaa xigaba sidaas ayaad u jiidaysaa. isla markaa markaad sidaa u calaamadsato aad highlight garaysato intii waxaad leedahay dhel. computerkaaga hadduu dhel leeyahay dhel ayaad siinaysaa. waxa uu ka baxday iminka. laakiin waxaan yareeyey uun maxay tahay gaabkii ayaan badh jaray. waxaan rabaa inay dhammaan waxaasi isku wada dhowaadaan oo maxay tahay uu cod saafi ah soo baxo. markaan leeyahayna aan ka dhex saaro. bismillah. bismillah. intaa gaabka inaan israaciyo. waxaan doonaya intaa gaabkaas inaan israaciyo maxay ahayd iyo intaan leeyahay intaaba inaan israaciyo ayaan doonaya. marka hore halkan hirka yara kala saar weeye. halkan waa sare hoos isugu soo yara hirarka. halkanna waa sare hirarka u kala dheeree. marka halkanna waxa weeye hirarka ballac isugu soo gaabi weeye. halkanna waa kala saar hirarka hore oo yara kala saar si aad u aragto meelaha yaryar aad ka tegayso. marka waxaan leeyahay markaan yar kala saarto halkaa ayaan calaamadinayaa anigoo maxay ahayd ku haya lefti iyo isku haya mouse-ka ayaan sidaan gacanta ugu riixayaa. isla markaa waxaan leeyahay del ama delete ayaan leeyahay. kuuriyada waqooyi ayaa dhacday ixdii iyo maxay ahayd wixiiba waan ka saaray sidaad aragto. gaababkaas oo dhan waan ka wada saarayaa. bartaas ayaan kana ka calaamadinayaa. intaas liidka ah ama shuqaaca
ayaan ka dhex saaraya shucaaci weyne ka saarnay waxaan leeyahay gaabka dhammaan sidaas ayaad uga dhex guraysaa. waxaad leedahay highlight ayaad leedahay halkan yara kordhi deedna in yar ku dar. intaa markaan ka saaro dheel ayaan leeyahay sidaa u highlight garaysto. intaasna waan ka saaray. xagga dambena sidan select ayaan uga saarayaa. intaa dambe oo dhan waan ka saaray. Kuuriyada Waqooyi ayaa dhacday lacag dhan 2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah si ay ugu maalgeliso barnaamijyada kobcinta hubka nukliyeerka sida lagu sheegay warbixin warbaahinta loo soo gudbiyay oo ay qaramada midoobay diyaarisay. iminka sidaad aragto war sax ayuu noqday. dhammaan waan isku highlight garaynayaa isla markaana haddana codkayga rabo inaan sare u yara qaado halkan ayaan haddaan rabo inaan hoos u dhigo halkan baan hoos u dhigayaa. iminka hadeer haddaan hoos u dhigo Kuuriyada Waqooyi ayaa dhacday sagxadda ayuu codkaygii noqdaa. halkan ayaan haddana sare uga qaadayaa oo ku kordhinaya codka. lacag dhan 2 bilyan oo dollarka waan ku sii darayaa Mareykanka ah si ay ugu maalgeliso barnaamijyada kobcinta hubka nukliyeerka sida lagu sheegay warbixin warbaahinta loo soo gudbiyay oo ay qaramada midoobay diyaarisay. iminka waxaad moodaa war caadiya oo saxa. Kuuriyada Waqooyi ayaa dhacday lacag dhan 2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah si ay ugu maalgeliso barnaamijyada kobcinta hubka nukliyeerka sida lagu sheegay warbixin warbaahinta loo soo gudbiyay oo ay qaramada midoobay diyaarisay. marka saabay maxay tayaan qalad loo qaadanin waa tijaabo un codkani waxaanse head news buu ahaa ama maxay tahay wararka madaxdiisu ahaa waan bbc-da kasoo xigtay bbcsomali.com aan kasoo xigtay. marka intaa yar ayaan soo qaatay sidaad aragto iminka balila tijaabi. war ma weegyahay sawmeeka. Kuuriyada Waqooyi ayaa dhacday lacag dhan 2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah si ay ugu maalgeliso barnaamijyada kobcinta hubka nukliyeerka sida lagu sheegay warbixin warbaahinta loo soo gudbiyay oo ay qaramada midoobay diyaarisay. isla markaana warkaaga marka sidaa u dhamaysato waxaad samaynaysaa inaad save garaysataa doonaysaa file ayaad tegaysaa dabeedna save as ayaad leedahay. halkan markaad maxay ahayd aad dhamayso waxaad leedahay waad ka masaxaysaa waxaad leedahay warkii oo dhan ayaad leedahay. isla markaana halka kugu save garaysan lahaa aniga waxaan leeyahay muusigayga igu daa. warkii oo dhan waxaan ka dambaysiinayaa dot iyo maxay ahayd sumada ama formatka uu bahalkaagu leeyahay mp3 igu save garay ayaan leeyahay. marka waxaan leeyahay save as ayaan leeyahay. wuxuu ku leeyahay warkii oo dhan waa la save garaynayaa ma rabtaa yes ayaan leeyahay. iminka markaan iska soo yar laabo maxay ahayd iminka waad aragtaa halkan warkii oo dhan isagoon wax qalad ay ku dhex jirin. Kuuriyada Waqooyi ayaa dhacday lacag dhan 2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah si ay ugu maalgeliso barnaamijyada kobcinta hubka nukliyeerka sida lagu sheegay warbixin warbaahinta loo soo gudbiyay oo ay qaramada midoobay diyaarisay. Kuuriyada Waqooyi ayaa dhacday lacag dhan 2 bilyan oo dollarka Mareykanka ah si ay ugu maalgeliso barnaamijyada kobcinta hubka nukliyeerka sida lagu sheegay warbixin warbaahinta loo soo gudbiyay oo ay qaramada midoobay diyaarisay. iminka oo warkii oo wax qalad ah ay ku dhex jirin qof kale la hadli karaa anigoo maxay tahay intaan codkayga joojiyo waxaan ka saari karaa qalad yar oo galay. sidaa ayaad u hagaajinaysaa codkaaga. waxaan idila socodsiinayay casharkan aniga oo ah Caseyr Aadan Salaamaan. taniyo intaynu ku kulmi doono casharkan casharka xiga idilhaantiinba waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala